dhulbo ballaaran ayaa ka bilowday waqtigan gudaha xarunta Xalane inta lagu jiro kala wareegga dawladda waxaana arrintan ka dambeeyo saraakiil iyo xildhibaano ka tirsan dawladda kuwaasi oo isku dayayo inta lagu jiro kala wareegga dawladda inay dhistaan ila kala duwan oo aan ka helay shakhsiyaad ka mid ah ganacsatadii loo sharciyay waxay ii sheegeen in si awood ay u dhisanayaan shakhsiyaad ka mid ah mas'uuliyiinta kuwaasi oo isticmaalayo shaatiga dawladda inta aan la dhisin xukuumadda cusub ganacsatadan oo baaq u diray madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday madaxweynaha inuu soo farigeliyo arrintan dhulboobka ka bilowday gudaha xarunta Xalane maadaama uu dalka mas'uulka ugu sareeyo waqtigan yahay sidoo kale ganacsatadu waxay cambaareeyeen saraakiil ka tirsan midowga nabad ilaalinta u jooga dalka kuwaasi oo hormuud u ah dhulboobka waqtigan ka bilowday gudaha xarunta Xalane